jacayl kasta oo guulaysta, farxad kasta oo rajo leh iyo sidoo kale guul kasta oo lamaanayaashu ay gaareen waa mid horseedkeeda uu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. qof kasta oo dunidan ku soo biiraya isla markaana maamulkeeda waa mid uu haya Allah. sida aan la wada soconno, lamaanayaasha Cabbaas iyo sidoo kale Faa'iiso waxa ugu weyn ee labadii maalin ee lasoo dhaafay ay filayeen waxay ahayd hanashada ubadkoodii ugu horreeyay oo curadka u noqon lahaa, laakiinse taas ma aysan dhicin oo Eebba ayaa dunida ka oofsada saqiirkii yaraa oo ifka ugu soo biiray labadooda. Cabbaas iyo Faa'iiso oo dadku badi ay u dirayeen fariimo la xiriira inay sabraan isla markaana wax kasta oo wanaaga iyo sidoo kale qiimaha uu ka dhaxeeya farxadooda marnaba aysan naaquusin cunugii yaraa ee ka geeriyooday ama ka saqiiray labadooda. Allah ayaa dunidan qof kasta oo ku nool ka farxiya isla markaana murug kasta oo qofka soo wajahda iyo xaalad kasta uu la kulmo waa mid lagu imtixaanayo isla markaana lagu tusinayo inuu ku cibro qaato qiimaha dunidan inaysan wax weyn aysan ahayn, balse qof kasta uusan ilaabin qiimaha aakhire ay leedahay. Cabbaas iyo Faa'iiso oo waqtiyo badan wada ilmeynayay kadib cunugoodii yaraa markii uu saqiiray, laakiinse hadda qalbigooda waa uu u degan yahay lamaanahan. fariimaha Cabbaas iyo sidoo kale Faa'iiso soo gaaraya waa kuwo isdaba jooga, laakiinse dadka badi iyo culimmadu waxay leeyihiin lamaanayaashan muddooyinkii lasoo dhaafay baraha bulshada aad ayuu isticmaalkooda ugu badnaa, waxaana jira il ka imaanaysa aadanaha qaarkood taasoo sababi karta marxalado kala duwan. kani waa sheekh dhalinyara waxaana fariin u diray lamaanahan. nolol quruxdeed haddii aad rabto barayfad ha ku ahaato, isha bini'aadamka waa mid kulul oo bir iyo dhagaxba ka dhex bixi karta. nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa inoo sheegay isha dhibta ay leedahay oo waxa uu yidhi alcaynu xaq, ishu waa mid xaqah. lamaanahan iga hooseeyaa beddel khayr qaba ayaan ilaahay uga baryayaa, saqiir aakhirana ilmaha ilaahay ha uga dhigo. khayr iyo guul baan kaaga tegayaa. ugu dambayntii saqiirkii ka geeriyooday Faa'iiso iyo sidoo kale Cabbaas waa la aasay. haddana qalbiyan Cabbaas iyo Faa'iiso qalbiyadooda way u degan yihiin, laakiinse waxa ugu weyn oo ay haminayeen waxay ahaayeen in mar uun ay arkaan curadkoodii ugu horreeyey oo ifkan ku nool isla markaana dhaqaaqaya, balse taas xagga Rabbi ma aysan ka qorneen oo Eebba ayaa oofsada saqiirkii yaraa ee wehelka u noqon lahaa lamaanahan. waxaa dunidan guud ahaan tuban dad badan oo owlaad aan la siin isla markaana lagu imtixaanayo owlaad la'aanta. waxaa jira kuwo badan oo farxadda iyo sidoo kale qiimaha nuurka dunidan uu ka dahaaran yahay isla markaana aan helin wanaaggaas iyo farxaddaas laga yaabo adiga inaad haysato. bal qiyaas malaayiinka qof ee ku daawan kara iyo sidoo kale waxay isugu jiri karaan. waxaa suuragala in saaxiib ay kula yihiin boqolaal qof oo laga yaabo marxaladda adigaad ku jirtid inaysan haysan. tusaalaha ugu dhow kuwaas ku soo qaado, bal ogow in ishuna ay tahay mid meel walba kaaga imaan karta.